بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وبعد مركور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز مجاعية وبروفيسور قانون وحن داود يالو ولي كبدي جرنا دراسة ديني أنا هو مجا درني ميسان دراسة ديني أنا هو مجا درني شنت جيس موضوع ميسان كنلاشها kaasoo qaybo aad u ballaaran iskale sidaas darteed qaybo badan aan ka soo sheekaynay maanta waxaan rabnaa inaan isla aragno ama aan isla qaadano dhammaan maxaa la jiray miisaanka nolosha qaybtiisii maxaa la jiray hay'adda maamulka khayraadka dalka khayraadka ummadda khayraadka qaranka waxaa rabta aan isla soo gaarnay maanta hadduu ilaahay idmo waxaan keeni doonaa maxaa la dhihi jiray tiradiisii ee qaab dhismeedkiisii shaqada uu qaban lahaa mudaxileedna dhib ma lahan waxaan mudaxileed lahayn ma lahan haddeer marka ila fiiri shanta gees miisaanka nolosha qaybta waxaan ku jirnay hay-adda maamulka khayraadka dalka tiirarkeeda waa 5 khayraadkeena ilaahay uu na siiyay ya aan cidna noogu abaal sheegan karin ilaahay oo nagu salimay waa 5tan ila fiiri koow xoolaha 2 beeraha 3 badda 4 dhulka 5 hawada 5 khayraad oo ilaahay na siiyay waa 5tan waa tiirarka xoolaha beeraha badda dhulka hawada khayraadka oo xaqiiqiga ah oo ilaahay na siiyay waa intaan marka waxaan rabnaa inaan qaybihii ay u kala baxayeen kadib markaan qaybihii gal aan dhamayno hadduu ilaahay waxaan ku dari doonaa maxaa la dhihi jiray 5 wakaaladood ee aan samaysan doono ee shaqada qabanayo aan geli doonaa aydan ku soo qabiitiri doonaa ila socod wanaagsan daawada waxaan ku jirnaa weli dhismihii hay-adda maamulka khayraadka dalka aan ku jirnaa dhismihiisii tiirarka maadaama aan sheegnay waxaa noogu xigay qaybaha ay u kala baxdo tiirarka 5 aan ka dhignay 5 oo soo xusnay haddeerna 5tii oo kala baxsan waaye qaybaha ay u kala baxdo ila fiiri xoolaha maxay u kala baxaan xoolaha maxaa la dhihi jiray oo la dhaqado maxay u kala baxaan waxay u kala baxaan 1 geela 2 lo'da 3 ariga 4 digaaga 5 kalluunka hadda cilmi cusub aba la iska bartayo kalluunka in la dhaqdo ayaaba la keenaa sida digaagii oo kale barkado waaweyn in la jeexo lagu shubo oo meesha ku tarmo oo maxaa la dhihi jiray subax kasta meesha maxaa la dhihi jiray laga iibsado beeraha ku soo haray beeraheena 5tan u kala bixi doonaa hadduu ilaahay idmo maxaa la dhihi jiray 5tan nooc beeraha ilaahay nasiyaan ugu faa'iideysan doonaa macnaha beeraha waxay soo saaraan way qudaarta sida ogtihiin cambeena iyo mooska beeraha ku bololaan qudaarta raashinka caadiga la cuno oo qolofka leh beeraha ka baxaa saliida waa ogtihiin beeraha ka baxdaa sonkorta sidaas oo kale beeraha ka baxdaa suufka oo laga sameeyo dharka beeraha ayuu ka baxaa okay badda ku soo hartay baddan galeynaa macnaha faahfaahin badan ma gelayno waa laga yaabaa inaan dhahno qudaarta markaan sheegno inaan raacino waa laga yaabaa qudaarteena wasaad ogtihiin mooskeena iyo cambaha iyo yaanyada waxay ku bololaan xilli kastoo ay baxaan beerihii gudahooda meel loo dhoofiyaa ma lahan dadkiina waa ay ka badan yihiin okay badda ku soo hartay kalluunka oo waayada faa'iidadiisa laga daba tegay argoosatada sidoo kale badda waxa laga helaan ka hadlaa badda khayraadka ku jiran ka hadlaa kalluunka argoosatada laga yaabo inay isku bah noqdaan
luulka jawharta cambarka waa ogtihiin dadan ogeyn waa iska jiraan dhulka ku soo haray dhulka ilaahayna si aan ku dul taaganahay waxa nooga soo baxaa ama aan dhexdiisa ka helnaa maxaa la dhihi jiray shantan shay noqonayaan saliidda dhulka laga qodo waxaa laga yaabaa maxaa la dhihi jiray dadka da'doodu ay yar tahay waxaa laga yaabaa inay u fahmaan saliidda waxa waaye shidaalkan dareeraha dhulka laga soo saaro maxaa ku soo haray birta oo maanta aad aragteen adduunka maxaa la dhihi jiray horyaalka nolosha noqotay maxaa ku soo haray macdanta oo lagama maarmaan ayadana doorka ay nolosha ka qaadatay la iska ogyahay dahabka oo faa'iidadiisa laga warhayo biyaha aan ku noolnahay sidii macnaha la ogaaday waayadii dambe in geeska aan ku noolnahay number 7 u eg oo sidiisa dhanba oo biyo dul saaran yahay oo adduunka la yiri dad noocaas haysta waa ku yartahayba waa ka gudbaynaa hawada ku soo hartay hawada ila fiiri hawada inay khayraad tahay hadda arki doontaa hawada ilaahayna siiyay khayraadka ku jira ala arki doona hawada waxay leedahay wadooyin la maro wadadaas ada iskale laakiin ma fahansanid tusaalo kale macnaha khayraadkan annaga hadda ilaahay uu na siiyay dhulkan dushiisa wax walba ku jira Soomaaliya maanta baahi ayaa loogu doolintaa nin khayraadkiisii maxaa la dhihi jiray la soo bixi waayey sanad kastana abaar u dhimanaya haddii aan miisaal ka bixiyo wuxuu la mid yahay nin waraabley ah oo beer waraabinaya markuu beerta waraabiyay kadib asagii oon u dhintay ayay la mid tahay hawada maxaa la dhihi jiray xadadka ay hawada leedahay maxaa ku soo haray marista la maraa ya adoon ogolaansho laga haysan lama mari karo degista hawada ya hawada maanta waa la degaa degisteeda saldhigya laga samaystaa kow sahaman waa laga sameeyaa waayahay shantan ku soo macnaha qaybahana u kala bixinay hadda waxaan gelaynaa maxaa la dhihi jiray wakaaladihii oo maxaa la dhihi jiray wakaaladihii oo wax qabadka qaabilsan waxaan keeni doonaa hadduu ilaahay idma wakaalad kasta iyo wax qabadkeeda san soo xusnana hay'adan waxaan ku tilmaanay hay'adii noo lisi lahayd hasheeni maandeeq ay ka dhigan tahay qaabkay uga dhigan tahay hadda khayraadkii waa keennay qaybo u kala baxayay tiirarkiisana waa sheegnay qaybihiisana waa sheegnay waxaan geli doonaa habkii waxqabadkiisi waliba aad iyo aad ayuu xiiso badan yahay san aniga aaminsanahay ee la soco fadlan